Your Excellency, President Dr. Salih Zoda, President of Federal Democratic Republic of Ethiopia. Your Excellency, Prime Minister Abiy Ahmed, Prime Minister of Federal Democratic Republic of Ethiopia. Your Excellencies, Honorable Head of States and Governments, representatives of government, distinguished guests, ladies and gentlemen. It's an honor to participate in this inauguration ceremony of the new government of Ethiopia, led by His Excellency Prime Minister Abiy Ahmed. I would like to thank His Excellency Prime Minister Abiy Ahmed and the people of Ethiopia for the customary warm welcome and hospitality accorded to my delegation and I congratulate madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya Marwe Sahle-Work Zewde, Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya Mudane Abiy Ahmed, hogaamiyaasha dalalka kale, wakiilada hogaamiyaasha iyo dalalka marti sharafta kala duwan mudanayaal iyo marwooyin. waxaa sharaf ah inaan ka soo qayb galo munaasabadda caleemasaarka xukuumadda cusub ee dawladda Itoobiya ee uu hogaamiyo mudane Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed. waxaan uga mahad celinayaa Ra'iisul Wasaare Abiy iyo shacabka Itoobiya soo dhaweynta diiran ay u fidiyeen aniga iyo wafdigayga. waxaan shacabka Itoobiya ugu hambalyeeynaa sida ay u xoojiyeen dimuqraadiyadda ugana qayb galeen doorashadii lixaad oo heer qaran ah iyaga oo doortay xukuumad ay ku kalsoon yihiin inay si dhab ah u matali doonto masaalixdooda qaranna u ilaalin doonto xilligan adag ee adduunyadu wajahayso caqabadaha waaweyn ee ugu horeeya cudurka COVID-19. In this regard, the government and people of Somalia congratulate His Excellency Prime Minister Abiy Ahmed on his landslide electoral victory, and we wish his government great success in achieving their empowering policy and political agenda for the Ethiopian people. dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed waxay ugu hambalyeynayaan Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed guushii baaxadda lahayd oo uu ka gaaray doorashada. waxaan u rajaynaynaa Ra'iisul Wasaaraha iyo xukuumaddiisu inay guul baraare iyo horumar gaarsiiyaan shacabka iyo dawladda Itoobiya. xilligan adag ee dunidu wajahaysa caqabadaha waaweyn ee ugu horeeya fayraska dilaaga ah ee COVID-19, isbeddelka cimilada adduunka iyo argagixisada, baahida ugu weyn ee la qabi karaa waa in la helo hogaamiye hiraal iyo aragti dheer leh si xal loogu helo dhammaanba mushkiladaha jira. si looga gudbo dhibaatooyinka maanta ka jira dunida, waxaa lagama maarmaan ah in hogaamiyaashu ay dadaal badan ku bixiyaan xal u helidda mushkiladaha, rajo abuurka iyo inay keenaan natiijooyin dadkooda iyo dalalkooda u horseedi kara horumar iyo barwaaqo. waxaan si weyn u aaminsanahay in marka madaxda Afrika ay si daacadnimo ah ugu adeegayaan mustaqbalka iyo aayaha dadkooda ay yihiin awood aan la loodi karin. natiijooyinkii ka dhashay doorashooyinkan ka dhacay dalka Itoobiya waxa ay si cad u muujinayaan in shacabka Itoobiya ay mustaqbalkooda ku maalgashadeen Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed oo u cadeeyay in shakhsi ahaan ay ka go'an tahay horumarinta iyo kamira dhalinta himilooyinkooda. aniga oo si dhow la shaqeeyay Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed waxaan ku kalsoonahay inuu ku dadaali doono ka dhabeynta filashooyinka dadkiisa. Excellencies, ladies and gentlemen, Ethiopia and Somalia enjoy historical bilateral relations and a strong bond of friendship built on mutual respect, strong people-to-people relations, and increased interdependence. Our two nations are jointly confronting international terrorism. mudanayaal iyo marwooyin, Soomaaliya iyo Itoobiya waxaa ka dhaxeeya xiriir saaxiibtinimo oo laba geesood ah kaasi oo ku dhisan iskaashi, wax wada qabsi iyo kor u qaadista isku tiirsanaanta. waxaanu si wada jir isaga kaashanaynaa ka hortagga argagixisada caalamiga ah, xoojinta ganacsiga iyo ka wada shaqaynta isku xirka saaxiibadeena gobolka iyo qaaradda si aanu u hirgelinno gobolka Geeska Afrika oo ammaan ah, midaysan, dadkiisu ay nabadgelyo iyo baraaro ku wada nool yihiin.
tani waa hadaf iyo yool cad oo ay dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed hirgelintiisa u taagan yihiin innaga oo kaashanayna dowladda Itoobiya dhammaanba dowladaha kale ee dariska ah iyo saaxiibadeena beesha caalamka. ugu dambeyn waxaan mar labaad ugu hambalyeeynaa dowladda iyo shacabka Itoobiya doorashada guuleysatay ee ka dhacday dalkooda. waxaa kale oo aan guul u rajaynayaa xukuumadan cusub ee uu majaraha u qabtay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed. mahadsanidin. I would also like to wish this new government, formed under the able leadership of His Excellency Prime Minister Abiy Ahmed, all success possible. I thank you all.